السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبada qiimihi badan ku xiran Abeka Teach maanta mawduuceena waxaan ku wada qaadan doonaa dhalinyaro badan ka caawinayso cilada WhatsApp banned. WhatsApp banned ciladaas waxay ku timaadaa in maaragtay robot laga gudbiyo sidoo kale in community guideline oo maaragtay WhatsApp u taalo haddaad xadgudubtid in maaragtay bankaas laga saari doono oo WhatsApp kaaga in muddo uu ka maqnaan doono kadibna aad maaragtay in la xiriirtid qolada WhatsApp kadibna lagu fasaxo bal maanta muuqaalka waxaan ku wada daawan doonaa ama aan ku wada sharxi doonaa hadduu eeba ka raali noqdo sida aad u xalsan lahayd WhatsApp banned aad uga dhigan lahayd WhatsApp unbanned inshallah binala kareem yaan hadalku ugu daalinin inta muuqaalkan guda gelin fadlan waxaan ka codsan lahaa inaad channelkan subscribe iyo saartid muuqaalka la yareysid asxaabtada la sii daakid inta sidaas soo sameysay muuqaalka screenkiisa ayaan isla tagi doonaa wala ina keenay wareen waxa soo kicin doonta application-kaaga WhatsApp markaas aan soo kicisid kadib waxa ku qor doonta create and continue ayaa leedahay kadib waxa leedahay use a difference number kadib allow kadib waxa halkan gelin doonaa lambarka qofka gabadha walaasheed iska leedahay lambarkaas geli kadibna next next markaan dhaho sida halkan kaaga muuqato continue ayuu dhahayaa qaybtan wuxuu ku dhahay is a banned from using WhatsApp contact support for helping marka qaybtan haddii aan la xiriireyno waa in waxa u baahanahay screenshot inaan ka soo qaadno oo screenshot halkan aan gelino kadibna qaybtan aan gelino add screenshot optional wixii aan maaragtay screenshot ka soo qaadin kadibna next aan dhaano qaabka marka xal badan lagu helayo oo dad badan way sameeyeen marka qaab cusub ayaan isla sameyn doonaa dhammaan WhatsApp ka dhan ayaa ka soo bixi doonta waxa imaan doonta application-ka Google Chrome-ka aad adiga isticmaashid nooc walba ha ahaado kadib qaybta searching-ka ayaa waxa ku qori doonta sida halkan aan kuga calaameynayo qaybta searching-ka ayaa waxa ku qori doonaa sida halkan aan u jeedid qaybtaas waxa ku qori doonta WhatsApp support ayaa ku qori doonta qaybta searching-ka qaybtan sare ayaa waxaan ku qori doonaa WhatsApp support ayaa ku qori doonta WhatsApp support marka ugu qortid kadib go ayaa leedahay go marka dhaadid halkan ayuu ku keen doonaa halka markuu ku keeno contact WhatsApp ayaa leedahay contact WhatsApp marka ku dhufatid qaabkan ayuu ku keeni doonaa contact WhatsApp marka ku dhufatid kadib sida WhatsApp yada isticmaali doontid haddii WhatsApp ka isticmaasho business uu yahay qaybtan kala xiriiri doontaa hadduu uu yahay WhatsApp messenger ka caadi halkaas ayaa kala xiriiri doontaa hadduu yahay WhatsApp accessibility and associate technology support kaas kala xiriiri doontaa kuwan waa service iyo waxyaalahaas isticmaala marka anaga hadda waxaan kala xiriiri doonaa qaybtan WhatsApp messenger support WhatsApp messenger support-gan ayaan maaragtay tagi doonaa qaybtan marka sidan u tago wareegi doonaa wuxuuna ku soo qori doonaa optionadaas oo kala ah ina halkan aad gelin doontid lambarka qaybta oo maaragtay Soomaali lambarka meesha ka hooseeya lambar ina gelin doontid meesha lambar ay gelin doontaa meeshan waxaan gelin doonaa Gmail-ka oo gabadha iska leedahay kasoo aadana Gmail-ka ayaan ku sii celin doonaa marka telefoonka isticmaasho telefoon nooca isticmaasha how do you use WhatsApp ya telefoon nooca ka isticmaasha WhatsApp-ka telefoonka ka isticmaasha hadduu Android yahay waa Android hadduu iPhone yahay iPhone waay web hadda ka isticmaalaysa desktop iOS iyo meel kuwa kale marka waxaa sameyn doonaa Android isticmaasha kadibna qaybtan waxa ku qori doonaa faahfaahin ama maaragtay codsiga aan markaas u diri lahayn dib ayaan u soo laaban doonaa codsiga ayaa meel igu diyaarsan waana qoray waxaan diyaariyay waay qaybtan qaybta oo Abeka Teach uu ku jiraa oo wax walba ina qoratid isku day marka qaybtan ayaa ku qoran laba qaybood waay marka qaybta marka oo laga saaro error messages-ka when I login this account is not allowed to use WhatsApp please fix this problem as soon as possible sida ugu macquulsan ugu xalaya ciladan qaabkaas ayaa u sameyn doontaa marka sidana u sameysid kadib waa koobiyin doontaa koobi marka u dirtid kadib waxa sameyn doontaa halkan ayaa imaan doontaa send ayaa ku dhigi doontaa qaybtan send marka sidana ugu dirtid kadibna halkan hoose ayuu wuxuu ku soo qori doonaa qayb oo ay ku qoran tahay next step kaas ayaan ku dhufan doonaa next step kaas ku dhufo next step ku dhufo marka next step ku dhufatid
isla markii wuxuu ku geyn doonaa qayb kale. Okay, isaga ayaa isxukumayo, qaybta kale ayuu wareejinayaa oo qaybta kale ayuu ku keenay. wuxuu ku leeyahay you any of this article is helping, intaano article midkee ayaan ka caawinaa. marka intaano article marka cilada ku haysato adiga og, cilada ku haysato maaragtay inaad akoonkaaga page aad ku dari karin, sidoo kale akoonkaaga stay safe on WhatsApp inuusan safe ahayn, receiving verification code without requesting, sidoo kale cannot. marka qoraaladan ayaa iska akhrin doontaa. marka waxaa la yidhaahdaa how to delete a phone number from WhatsApp business platform, how to move your account information from the WhatsApp business app to WhatsApp messenger, sidee ayaan labadaas WhatsApp ugu delete karaa. marka ciladahan marka qaabkaas ay ku xalin doontaa. how to link a device with a phone number on WhatsApp business, sidee aan ayaa ugu xiri doonaa linki oo telefoon kale waxyaalahaas la xiriiri doontaa. how to add business WhatsApp business account to Facebook page. marka banis about account banis, marka qaybtan ayaa u baahanahay questionkaas ayaa ku dhufan doontaa. marka sidan ugu dhufatid wuu wareegi doonaa oo in yar ayuu socon doonaa. in yar markuu socdo daqiiqadaas uu soconayana waa daqiiqad yar oo markaas lagu talagalay. qaabkan ayuuna u imaan doonaa account baniska. kadibna waxaad tegi doontaa qaybtan uu ku dhahay qaybtan hoose ee ku qoran tahay does this answers your question, su-aashaada ma laga jawaabo no ayaa leedahay. waxaa leedahay the solution does not work, halkan wiilam uu sii shaqeynay. kadibna qoraalkii oo hadaaya maaragtay halkaas ka diraysa ayaa inta ku celin doontaa. kadibna submit ayaa dhihi doontaa. halkan wuxuu ku soo qoray thanks, waa mahadsan tahay, your feedback falcelinta helps caawinada, improving sidaan sar ugu qaadano this answers for everyone, qof walba oo markaas oo cilad haysato si aan uga jawaabno ayaan halkan ugu soo dareen. marka insha Allah laakiin maanta muuqaalkan waxaan kula talagalay inaan kula wadaago sida aad WhatsApp banetka u xalsan lahayd adigoona isticmaalayo steebyadan oo kala duwan. steebyadaas oo kala ah in maaragtay aad ku xalsan lahayd WhatsApp-kaaga, barnaamijyadaada, wax walba oo markaas adiga ku quseeyo inaad maaragtay ku xalisid. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan muuqaalkan screenkiisa soo daawatay. cilada farsamo si loo xalin aad soo aragtay. haddii ay tahay ciladeeda way xalisamatay, haddaysan ku xalismanin fadlan waxaa ka codsan lahaa inaad dhanka commentiga aad nagu soo qortid oo weli cilada iimaysa xalismin si aan u raadino farsamooyin kale aan ku xalin karno WhatsApp-kaaga. bal yaan hadalku ugu daalnin, muuqaalkii gabagabadii iyo gunaanadkii isla soo gaarnay. haddaa inta in la soo gaartay aadna tahay saaxiib daawada qiimo badan ku cusub kanaalka Abeka Tech, fadlan waxaan ka codsan lahaa inaan nagu soo biirin si aan kugu soo dhaweeyno gacmo furan, qalbi furan, laab furan intaba. insha Allah janaalka subscribe saaro, muuqaalkan xaqiisa leh. insha Allah intaan kulmi doon muuqaal caynkan oo kale idinkii. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. inta dhalinyaro tahay ka faa'iideyso.